Ra'iisul Wasaaraha waddanka Britain Theresa May ayaa cambaaraysay weerarkii lagu qaaday dad muslimiin oo ka soo dareeray salaadii taraawiixda masaajid ku yaala Finsbury oo ku taala waqooyiga London xalay halkaasoo nin gaari wataa uu ku dilay hal qof 10 kalena lagu dhaawacay. Mrs May ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid lagu bartilmaameedsaday muslimiinta. This was an attack on Muslims near their place of worship. And like all terrorism, waxa uu ahaa weerar lagu qaaday muslimiinta oo jooga meel u dhow halka ay ku cibaadeysanayeen si lamida argagixisada nooc walba ay yihiin waxa ay leeyihiin nooc asal raac hadaf isku mid ah waxay raadinayaan inay wax kala kaxeeyaan oo ay weeraraan midnimada aynu dalka ku wadaagno ogolaan mayno inay tan oo kale dhacdo. As I said here 2 weeks ago, there has been far too much tolerance of extremism in our country over many years. And that means extremism of any kind, including Islamophobia. Nin 48 jir oo la tuhunsan yahay in weerarkaasi uu geystay ayaa la xidhay. Dadka masaajidka ku tukanayayna waxa ka mid ahaa Soomaali badan oo ku nool waqooyiga London. Why is it coming?